soomaalida waa suntii harkaha waxa ma dhigaysanayso boqol wardaar calis waxa ma xiri karo ee dadka dad buu aagsanaya dadka waa la dilaya hal la ogaado asxaabta qaaliga ah waxa idin la hadlayo oo nasaan u dhaawacan waa maxmaamiin yaxye asxaabay waxa igu dhacday arkii ii dilay waxa waaye maadaama aan cadaalad iyo xaq ka hadlay oo aan ka hadlay runta jirto ee Sharma Boy iyo Deeq Darji loo geystay waxa dhacday maanta markay saacad baraysay halka saac haweenimo waxay soo wacay dhalinyaro hadda ma kula tahay dhalinyaradaasi hadda ma kula tahay dagaalkan inuu dhamaaday daar calasow gacan baa lagula tegi doonaa daar calasow gacan baa lagula tegi doonaa daar calasow gacan baa lagula tegi doonaa daar calasow tan waa ka shaqayn doontaa ninkan haddaa is weydiinaysid daar calasow qabiil baa loo haystaa daar calasow qabiil ma laha ninkana u jeedaan daar calasow ayuu qabiil kula yahay waa inaad ogaataan waa sii daawan koobnaayeen 8 qof waxay yiraahdeen walaal shaqbaaba kuwa qaar aan aqoon u leeyahay waxay yiraahdeen biyaa la hadlayla shaqbaaba markaas ku yiri haa waa diyaar busti aqoon ab u lahaa waxa dhacday in la yiraahdo brother waxa rabaa inaan kula hadlo ara oo kulkulba aan kula hadlo kala hadla arka Sharma Boy iyo waxyaabo ku saabsan waxa yiri brother diyaar waay waxa ka qabi waxa dhacday dhalinyartii ila u tago markaan u tago inay gaari ii gashtaan oo yiraahdaan brother inta ku soo wada hadlayla ina wad waxay anigoo baabuurka ku sii jiro waxa liigu kor wacay dhig la yiraahdo Axmed Rashiid markii liigu wacay waxay yiraahdeen anigu waxaan la yaabanahay ninkan waa la gaalayba ninkan waa la gaaday dadka Soomaaliyeed ee Axmed Rashiid ka cabsanaya ee Kenya la jooga ee Afrika la jooga ee Soomaalida ah Axmed Rashiid ka maska qaban weydeen aniga miyaa fly soo qaato oo nigu yimaado meesha oo niga qabta Axmed Rashiid waa 9 bilood buu ku dhashay kama fadli badna Axmed Rashiid baa dadka diya Axmed Rashiid baa laga cabsanaya Axmed Rashiid ma al-shabaab ka xuyaan misaqa qablaasha Soomaalidu ka xiyay intee joogtaa waa ku ibaarayna arigu waxa siri hadii aad gabatid ama hadii aad cabsi aad isgelisid waxa iska dhigaysaa qof dambiile ah ha iska dhigin qof dambiile maadaama aad dambi lahayn because Axmed Rashiid wuxuu hawshiisa ay tahay inuu dilo rag tuugada ah rag wax dhaco rag doorada wato iyo rag biskoolada wato aniga intaasi kaba saabsani mara ku jiri waxa la ii soo kaashtay dhalinyartaasi dhalinyartii markay wada hadal bilaabeen oo meesha agaaribeen la dhaho Jam Street Al-Hayat dhalinyartii waxay bilaabeen in haraantin la igu qabto mid ka mid ah wajiga uu iga haraadiyo markaan kacay aan u gegsan waayay aan gacan u qaaday oo isdagaalay waxay ka koobnaayeen markaas 10 qof 2 qof ayaa gadaal uga soo dirsoontay kadib waa la iskiigu kaytay dooriyaa la soo baxay toori markii la soo baxay aniga markii waxaan waa istaagay oo waan isdajiyay waa la iskiigu kaytay markaan arkay in gacaqaad badan la igu sameeyaayo waxaan bilaabay inaan iska dhiciyo sidii ragtirimo ah waxaan isiri brother waa dhibatay intaan la dhimanin ka hore geestirimo u dhimo gacan ayaan u qaaday markaan gacan u qaaday waa la iga badiyay maadaama la iga badnaa waxaan noqday geesi garab waayay oo mataqaanayo weel iska saari waayay kadib waxaa dhacday in oo mataqaana baabuurka markay gistaan ayagoo hanjamaad iyo wax walba wadaan irbaaxshi iyo gacan qaad wax walba waxaa dhacday inay dhahaan yar la yiraahdo cadaan model iyo inta ma jeerteen abadan waxaa balan waa ina meel saaro oo magaalkiisa nabad ku noolaanin waxay yiraahdeen adigoo la jeerteen ahayn waxaad ma jeerteen oo daba dhaqlaynaysid waxaa tahay daba dhilf ma jeerteen waxay ahaayeen dad awooyaasha la xirxiray dad awooyaasha micnaheedu waxa waaye xaram maxaa ka hadlaayay awooyaashi micnaheedu waxa waaye ariga hadda barjeeteen ma yihi waxa lagu soo weerar doonaa deeqaysadoo barjeeteen matiida maxaa daba dhilf ku tahay waa si daawanayna calool xumo waaye aad baan ugu qeyrooday aad baan uga xumahay walaalkeena ummad Soomaaliyeed waxaan waa inaan ninkan aan iskugu tagnaa caawinaa walaalkeen nin walba goonida ka caawi waxba ha weydiinin xawlaada tag waxaad awood u dir walaalkeen caafimaad u baahan yahay aad baan uga xumahay gumaaday iyo gacaqaad fara badan dhalinyartaasi dhammaan waxay ka koobnaayeen dhalinyaro ogaadeena way soo kaxeeyeen waxaa la ii geeyey ninka Axmed Rashiid ahaa markii Axmed Rashiid la ii geeyey inta Axmed Rashiid la ii geeyey ka hor baabuurkii intay igu wadeen hajabaad badan ay igu wadeen waxay yiraahdeen waxaa next ah oo kugu xijireena ninka la yiraahdo Cunaan model maadaama uu yahay majarteen marka waxaa dhacday ina ay soo wareejiyaan askari la ii geeyo askari walba la ii geeyo wuxuu igu sameeyay gacaqaad wali dhirbaaxay wali feeray kadib
waxaa dhacday in la ii warwareejiyo kadib in la ii geeyo ninkii ahaa axmed rashiid. axmed rashiida markii la ii geeyey wuxuu yidhi wuu ka naaxay wejigeyga iyo dhaawacay saaran. wuxuu yidhi anigii raalli kama ihi, waxay soo wacday maamada hooyada, laakiin raalli kama iyo wax lagugu sameeyey. waxaa weydiiyey haddii aad raalli ka ahayn maxaa kugu kalifay inaad mataqaanaayo aad ii soo adeegsatid dhalinyartaasi adigoo awood u laha inaad ii imaadid oo aad ila hadashid. wuxuu yidhi waa ka xumaayay, waxaa u malaynaya inay ii keenayeen. dhalinyartaani waa dhalinyaro oo ahaan jiri super power, waa dhalinyaro oo mataqaanaa intii la laayay kasoo hirtay, waxaana la laayay ay ahayd qabiil darteeda. waxay yihiin dhalinyaro maanta ku jooga magaalada xoog iyo gubaad iyo mataqaanaa qawac. lama daawan karo. dhalinyartaasi waxay ii sheegteen awood xad dhaaf ah, awooddaasi oo ahayd inay yihiin ogaadeen magaalkani ogaadeen ka taliyaan ani ahay daba dhilif majarteen, maadaama aan gabar majarteen wax la sameynaayo, aan wax la jilaayo, aan muuqaal la duubaayo. marka waxaa dhacday in ay yidhaahdeen sharmaboy iyo waxyaabaha ku ugaxilisay inay igu soo ogaan ama ay dhahaan toori ayaad wadataa, toori ayaad igu dishay. ninka waxaa dhacday kadib inay dhahaan toori ayaad dadka ku dishaay ama toori ayaad wadataa. waxay yidhaahdeen cadaamodel iyo dhalinyaro oo asaga dabaraacsan haddii nabad ku noolaadaa magaalkan anaga rag marihin. waxaa dhacday in axmed rashiidkii uu idhaho waa ka xumaayay waxyaabaha falkufooshu lagugu dhimay markii la dhaawacay, lai jugeeyey, wejigeyga dhaawaca lai saaray. waxba iima taraysa raalloqo, waxbana iima tarayso wax la iigu sameeyey. ragga dhaayo iyo dumarka dhaayo sharmaboy wuxuu waxaan u sameynayaa views darteeda, wuxuu waxaan u sameynayaa in uu mataqaanaayo oo qabiil iyo waxaas diriyo. waa maqlaysaan daar cas oo livekiisa shalay mise video shalay soo dhigay wuxuu dhahayay views buu u sameynaya, waxaan waa been, wax lagu sameeyey ma laha. waa maqlayseen dadka waxay ka soo hadlayeen oo qabiilkii loo bedelayay. is-ooyi baa la yidhahay si loo daawado. xalay baan ka hadlay ninkan uma baahna views, waa ninka ugu viewska badan waay soomaalida, malaayiin baa daawata video uu soo dhigo. wax views uma baahna sharmaboy. sharmaboy wuxuu la ooyey xanuunka iyo caradii iyo waxa iskugu tegay ayuu la ooyey. aad baan uga xunnahay yarkan Soomaaliyeed walaalkeen, aad baan uga xunnahay, waa la xanuunsanaynaa. aniga waxaa la ii dhaawacay waa su-aal, aniga ma baqaay. waxaa ballan qaadayaa, waxaa ilaahay hortiisa ku dhaaranayaa haddii aan wax la ii dilin inaan gacanteeda wax ku dilanayo. haddii aan samaynina hooyaday xakiimo aadan faarax oo siday igu soo korisaan aqoon u leeyahay ayay ka sinaystaa haddii aan maanta aarsanin. daawadayaasheeda qeybaha qadirinta mudan, dhibaatadaani waxay ii soo martay oo lala iigu soo wajahay darteeda xaqa aan ka hadlay. anigana marnaba kama leexanay inaan ka hadlo xaqa iyo cadaaladda, mana ka baqaay mana ka gabanaay. xabada haddii oo mataqaana igu taalo 20 xabo la igu tiriyo, waxaan u dhimanayaa xaqa, waxaan u dhimanayaa cadaaladda. xaq mar walba waa guulaystaa. walaalkan xaqu ku taagan yahay inuu aarsadana waa sharci, inuu istifaaco waa sharci. wejigiisa sidaa loo galay, madaxiisa dhaawaca gaaray, hadduusan u dhimanin ayuu nasiib leeyahay. hadduusan maanta dhiiggaa lahaan lahayn, dhaawacaa lahaan lahayn, dad baa daar calis oo weli sii aamin lahaa. dad baa hadda dhiiggaasoo u jeeda soo caynaya oo dhahaya daar calis oo fifa waa geesi, dad buu Kenya ku dilayaa. marka asxaabay dhalinyarta kaleeto loo soo socdo waxaan u leeyahay, waxaan leeyahay ayagoona hadlin ayaa loo socdaa. is ilaaliya cadaalad, mataqaanaaye cadaaladna waa u baahanahay. soomaaliya haddii aan xishmad iyo mataqaanaaye wax walba aad iga haysid, aan hal maalin kaa qosliyey, aan hal maalin kaa farxiyey, tookada waa tookadeeda aad iga farxiyeen, anaad iga farxisid inaad waxaan doonayaa aad ii banaan baxaan ii istaagaan. taasi waxaa waaye waa baryo aan idinka baryayahay. waxaa ballan qaadayaa inta waxa igu soo gaarsiiyey dhaawac inta i gaarsiiyey haddii aanan ka aarsanin waxaan isku bedelanayaa naag naasa leh,
waxaana mataqaanaa ilaahay hortiisa aan ku dhaaranaya haddii aan ka aarsan waayo ilaahay inuu cadaabo jahiimo salkeeda imari ilaa waad u jeedaan caddayntii idinka haysataan rasiidkii bannaankan idin soo dhigay sharma boy waxaa loo geystay iyo deeq darajo waxaan bay ahayd waxaanu ka hadlayna waxaan bay ahayd cid maanta jabsan karta youtube-kaaga iyo facebookkaaga kasoo dhex hadli karta ma jirto qof madax xabad looga qabtay ayaa lagu jabsan karaa lagu soo dhex hadli karaa taas ummadda soomaaliyed way ka dhex adeegtay qabiil iyo qabyaalad bay ka dooratay aad baan uga xunahay